بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalaha sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Maanta waxaan idin wadaa qiso aad u cajiib leh, run ahaantii mudan in lagu cibro qaato. Dadka mu'miniinta ah ayay cibrada wax u tartaa. Maanta qisadan waa qiso cibro qaadasho ah. Waan filayaa dad badan oo walaalahayaga inay ku cibro qaadan doonaan. qisadan waa qiso diini ah oo ku dhacday wiil muslin ah. wiilka oo ka lunsanaa jidka rabbigiis, kadibna Allah subxaanahu wa tacaala ku soo hanuuniyay riyo cajiib ah oo uu ku riyooday. wiilkan wuxuu la noolaa qaar ka mid ah qaraabadiisa. wuxuu ahaa mid ka sii jeeday waxyaabaha uu Allah subxaanahu wa tacaala amray, kuna sii jeeday waxyaalaha uu Allah naga reebay. habeenada ka mid ah, Allah ayaa subxaanahu wa tacaala wiilkan la doonay kheyr. waxa uu hurdadiisii ku arkay isagoo mugdi ku dhex sugan, haddana uu u soo laabtay hanuun. qisadan waxaa ka sheekeeyay wiilka ay qabsatay, wuxuuna yidhi: habeenada ka mid ah ayaan waxaa tegay furaashkayga ama joodarigayga sidii caadada ii ahayd, si aan u seexdo. markii aan tegay meeshii aan seexan lahaa ayaa waxaan dareemay wax bini'aadan u raad eg oo misana igu soo dhowaanaya. waxaan Allah ka magan galay shaydaan dhagartiisa oo waxaan mooday shaydaan inuu waswaasinayo. kadib waan iska seexday. waxaan hurdadii ku arkay shay ii dhow oo haddana aad u yar, oo misna samada ka soo dhacaya dhulkana ku soo socdo. waan yaabay. waxaan caddayn waayay ama sifeyn kari waayay shayga aan arkay waxa uu ahaa. waxaan arkay shaygii yaraa oo isku beddelay naar weyn, subxaan Allah, oo igu soo hoobanaysa. waan fariistay anigoo walbahaarsan, misna raadinayo shakhsi aan u kaashado musiibadan. meel aanan arki karin ayay iiga dhawaaqeen, waxayna igu yidhaahdeen: tani waa saacaddii qiyaamaha bilowgeedii. maanta qiyaamaha way dhacday oo maalintii qiyaamo waa la joogaa. tanna waxay ka mid tahay calaamadihii ugu horreeyay. waan argagaxay. waxaan xasuustay wax walbo acmaal ah ee aan hormarsaday, hadday wanaagsanaan lahayd iyo hadday xumaan lahaydba. acmaashii aan sameeyey ayaan soo xasuustay. waxaan bilaabay qowmamayn iyo shalayto midii ugu darneed, inkastoy shalayto wax tarayn. waxaa isoo food saaray cabsi iyo walbahaar. waxaan isweydiiyey, inteed howsha ka bilowdaa? sideen ku badbaadi karaa? waxaan maqlay mid dhawaaqaya oo lah: maanta ma ahan maalin ay qowmamayn wax tarayso, waana laga abaal marin doonaa wixii aad qabatay. xaggee baad ku sugnaan jirtay xilligii salaadaha? maxaad ahayd mid qabta markay kuu yimaadaan arrimada alle ama awaamirta alle? ma ahayd nin wanaagga qaato, xumaantana isaga tago, balse waxaad ahayd mid hilmaamay rabbigiisa. waxaad wakhtigaaga ku lumisay ciyaar iyo heeso. maantana waxaad imaan adigoo ilmeynaya kadib markaad aragtay cadaabkaaga. waxaa sii siyaaday shalaygayga kadib markaan maqlay mid iigu yeeraya cadaabka adag. waan ilmeeyey ilaa ay ilmadu iga idlaatay ama iga dhammaatay, laakiin waxba iima tarin. isla daqiiqada ayaan ka toosay hurdadii oo waxay ahayd riyo. waxaan eegay nafsadeyda. waan rumaysan weeyey riyadan. waxaa iga soo booday neef weyn maadaama aan noolahay oon weli jaanis haysto. waxaa isoo wajahday cabsi hor leh, mana ka zuulin in aan baqaayo.
nafsadeyda ayaa waxaan ku idhi, wallaahi baan ku dhaartay kani waa digitaan kaaga imaaday dhanka Allah subxaanahu wa tacaala. maalinta la isa soo saari doonana waa lama huraan. maxaad Allah u caasin ayaan isweydiiyey. miyaadan ahayn mid dhex dabaasho wuxuu Allah xarimay? su'aalo fara badan ayaa ku soo degdegay maskaxdeyda, umana helin hal jawaab oo qura mooye, taasoo ahayd Allah subxaanahu wa tacaala u laabashadiisa si maalinka weyn aan u badbaado maalinka qiyaamo. waxaa baryay waagii, waxaana la gaaray salaadii subax. waan tukaday, nafsadeydana waxay dareentay raaxo iyo wanaag subaxdaas. waxaan soo baxay, waxaan koray gaarigayga. kadib waxaan eegay gudihiisa, misna waxaa ka buuxo cajalada heesa ah. waan ka saaray dhammaantood, waxaana ku tuuray meelaha qashinka lagu tuuro. intaa kadib waxaan raadiyey cajalada diini ah iyo quraan, si aan uga faa'iideysto oo wax ay iigu taraan. cajalada islaami ah ayaan soo gatay. xaaladda wanaagsan ayaana ku sugnaaday, waxaana ka mid ahaa mid ku sii dhowaanaya waddada hanuunka. badanaa tiro dad ah oo ka lunsan dhaldhalaalkan dunida ee beenta ah, oo badanaa inta ay hilmaamsan yihiin maalin aan la hilmaami karin, maalinka uu shaqsiga ka cararaya walaalkiis, hooyadiis iyo aabihiis, xaaskiisa iyo caruurtiisa. waa maalin maalka iyo caruurtaba aanay waxba tarayn, ilaa ruux alla ola taga qalbi wanaagsan iyo camal suuban mooye. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, qaala tacaala, yowma yafiru lmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih. wuxuu kaloo yidhi Allah subxaanahu wa tacaala, yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata Allaha biqalbin saliim. walaalayaalow, miyaysan ahayn in Allah subxaanahu wa tacaala aan u laabanno inta aan geeriyoonin ka hor, oonan shalaytin maalin ay shalay wax tari doonin. qisadeennii ku cibro qaadashada lahayd maanta halkan ayay noogu eg tahay. waan filayaa dad badan in ay bedeli doonto, ayna ku cibro qaadan doonaan. waad mahadsantihiin walaalaha sharafta leh. soo dhawaada asxaabta cusub. asxaabtii horena sidoo kale inoo sheergareey fiidiyowga, laygta inoo saara waa dhiirigelin. wixii tale i tusaalena waa qaybta kommentiga. wassalaamu calaykum.